Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. Soo dhawaada. Waxaan inta badan halkan in kula wadaagaa xirfadaha suuqa shaqada, tiknoolajiyadda iyo sidoo kale dhiirigelinta. Maanta haddii la yiraahdo waxaan rabaa inaan idiin soo gudbiyo 10 xirfadood ee ugu macquulsan kuwaas oo waqti gaaban muddo 2 bilood 3 bilood aad si fiican ugu baran kartid. Xirfadda koowaad ee aan rabo inaan kula wadaago haddii la yiraahdo waa xirfadda video editing ama muuqaal samaynta. Sawirka muuqaal samaynta waxay door weyn ka qaadataa xirfadaha suuqa shaqada ee xilligan. Qofka hadduu marka leeyahay xirfad sida video editing oo kale waxyaabo badan ayuu ku isticmaali karaa sida in uu asaga uu shaqooyinka si private ugu qabsan karo, sidoo kale inuu shirkad ama xarun ugu shaqeyn karo ama telefishin ama waxyaabo noocaas oo kale ah, ama si freelancer ah in uu ugu shaqeyn karo asagoo isticmaalaya Upwork iyo sidoo kale Fiverr. Xirfadda labaad waa graphic design ama waa samaynta naqshadaha sida aad arki kartid boorarka, ID kaarada, business kaarada. Waxaan ogsoonahay xirfaddan waqtiga lagu baranayo waa waqti aad u yar sida 2 bilood 3 bilood. Waxaan ogsoonahay inay tahay xirfad aan la dhayalsan karin. Shirkadaha daabacaadda ee hadda ka shaqeeya dalkeena Soomaaliya dhammaan shirkadahaasi kaliya waxay ku shaqeeyaan 2 ama 3 software oo kamid ah graphic design sida Photoshop, Illustrator iyo InDesign. Ka waran marka haddii aad baratid shirkaddan ayaa waxaa laga sameeyay in graphic design bes ay ku shaqeyso, intaasoo shaqaalana ay ka dabarto iyo horumarna ay ka sameyso. Waxaad dareemi kartaa marka graphic design-ka waqtiga lagu baranayo iyo sidoo kale xirfadda intay baaxaddeeda laagtahay in ay ahayn wax fudud. Midda kale ee aan rabo inaan kula wadaago waxay tahay digital marketing horta qaybo badan uu leeyahay, laakiin waa kala qaadaynaa qaarkood. Waxaan soo qaadanaynaa qaybta ay dhahaan social media marketing ama suuqgeynta baraha bulshada. Qaybtan ayadana waxaa ogsoonahay waa qayb loogu talagalay in lagu suuq geeyo productyada ama serviceyada iyadoo la isticmaalayo social media sida Facebook, Instagram-ka, WhatsApp-ka, TikTok-ga, whatever. Ayadana waa sidoo kale waa xirfad kale oo aad muhiim ah hadda barat. Google Ads-ka maxaa waa asagana? Google Ads-ka waa advertisement ama xayisiin platform taasoo lagu sameeyo businesska ama u ogolaanaysa businesska iyo dadka marketerska iyo website-yada in ay kusoo bandhigaan xayisiimahooda Google search-ga ama Google-ka wax laga raadinayo oo kale. Okay, taasna inta badan waxay xisaabisaa ama ay ku tiirsan tahay waxa la dhaho pay per click ama PPC waxa la dhaho. YouTube-ka oo kale hadda lacagaha lagu xiro ama waxa laga sameeyo tusaale qofka arkaysa hadda YouTube maanta lacag ka sameeyo ku dhaamo lacagta ka sameeyo wuxuu ka sameeyaa Google Ads-ka xayisiin ayaa ugu xiran. Xayisiintaas marka muuqaalka la soo galo oo muuqaalka la daawado oo lacag ka sameynaya taas marka waxa la Google Ads marka aad baratid waa wax aad muhiim u ah ama aad u fiican. Xirfadda shanaad ee aan rabo inaan kula wadaago waxay tahay affiliate marketing. Waxaan kala dhigi karnaa waa dalaal. Tusaale waxaa soo qaadanaysaa linkiyo oo markaasi product ama la gadayo sida website-yada Amazon, AliExpress, shirkadaas ama xarumahaas ayaa waxaa soo qaadanaysaa website-yada platformadaas waxaa ka soo qaadanaysaa linki kadibna xayisiin ayaa u samaysanaysaa. Marka xayisiin u samaysidna wixii markaasi ka soo hela u helaysaa commission. macnaha tusaale waxaa dhacday dukaan waxaa tiri alaabaan ku soo gadaya. Okay, waa baxday beel kala tagtay waxaa dhacday niyo alaab noocaas haynaa. Okay, alaabta maxaa gadaa qiimahaasaan gadaa. Okay, ikan ku dhahaa soma waa baxay adiga marka waxaa tagay dukaankii awil heshiiska la soo gashay waa soo qaatay alaabtii nimankii u geysay waa ka soo gaday qiimihii adiga maxaa la dhihi jiray uu gadaysay commission ayaa ku yeelanaysaa ama qayb ayaa ka soo galayso. kaasa marka waxaa lahaa affiliate marketing hadda in badan maqashay. waxaa jirto xirfadda kale oo lixaad oo baran kartid waxaa waaye waxa la dhaho copywriting. Wax kale ma ahan waa xirfad lagu tagal in qoraalada lagu qoro waxyaabahaas marka waxaa lahaa weliba ayadoo marka qofkan qoraaga ah oo si il gaar ama fiiro gaar ah oo akhristayaashiisa u fahansiin karo. macnaha qoraalada noocaas ah waxay si loo qoraa si ay ficil ama akhristayaashiisa ay u soo jiitaan. xayisiimaha qofka qoro kale qoraalada hadda qofkan hadda tusaale xayisiimaha la codeeyo kale qofka qoro kale maxaa lahaa waa copywriter lahaa. qofkaas xayisiinta asaga gacantiisa ku qorayso ma waa scripter waaye. marka blog hadda wax ku qoraysid sidoo kale sales pages marka sameynaysid oo kale ads copy-ga marka sameynaysid waxyaabahaas marka la isticmaala copywriting. marka hadda maqato qofka waa copywriter hadda maqashid waa qof waxyaabahaas aan abuuro oo xuquuqaadkaas qoro waaye. xirfadda kale ee aan rabay inaan kula wadaago waxay tahay web design ama samaynta website-yada. samaynta website-yada si ogsoonahay waa xirfad ka mid xirfadaha ugu muhiimsan ayadana kuwaas oo aad marka aad baratid oo kale website-yada aad u sameynaysid haddii shirkada tahay haddii ay tahay xarun waxbarasho waxyaabahaas oo kale marka samaysid waa xirfad aad si toos ugu shaqaysan kartaa iyadana.
xirfada kale ee ayadana bari karta waxa waaye mobile and computer technician farsamada telefoonada iyo kombiyuutarada ayadana wax xirfad waay oo hadii aad taqaanid maanta bariiskaaga banaanka waay infaanto waa bixisa kombiyuutar ma ka sameeyaysaa waa bixisa telefoon ma ka sameeyaysaa ayadana sidaas oo kale waxa waay wax xirfad kamid ah xirfadaha la barto kuwa ugu muhiimsan waay kamid tahay farsamo yaqaan hadaa tahay waxa waay waa banaanka taala sidoo kale ayadana xirfada sagaalaad ee aan rabin kula wadaago waxay tahay social media management in aad maamushid barihi bulshada ee shirkadaas ama xarumahaas in aad maamushid adiga wax soo boost gareynay xayisiimo sameynay engagement sameynay waxyaabahaas dhan ayaa macnaha maxal jiri ah ka dhisaysa software si gooni ah loo isticmaalo marka wax la wanaajiyay way jirtaa analyze kana u sameysid waxyaabo badan adiga ku jiro marka shirkad kasta waxay leedahay marka habraac ama qaab ay ayadana marka ay rabto in ay waxay u soo kaciso marka systemkeeda u madraacaysa xirfada tobnaad ee ugu dambeysay aan rabay inaan kula wadaago waxay tahay e-commerce waxa waaye waa electronic commerce waa ganacsi aanan physical ahayn oo online maxaa loo jeedaa gurigaada iyo meesha aragtid ayaa ku shaqeyn kartaa adigoo u iibgeynayo alaabtaada hab online okay taas hadii aad aragtid waxaa arkarnaa hadda e-commerce gaan oo kale shirkado badan oo waxay jira marka isticmaalo dalkeena ku yaalo sida shirkadan Sami online wuxuu kasoo bilaabay qayb hoose oo ah alaab inuu dukaan ka soo qaado oo meel kale u geeyo soo website leen waxba lahayn qaab physical oo shaqeynayo waxa kale oo kamid ah e-commerce-yada hadda Soomaaliya ama dalkeena ka jiro Somar Somali online market laga soo gaabiyay ayadana waa aragtay in online habka wax ku gadatid inkastoo xafiis leen laakiin haddana sidoo qofka wuxuu qaabka wax ku soo gadanayo waa hab online waxaan rajeynayaa in aad halkan aad ka fahantay 10 xirfadood ee ugu muhiimsan sanadka 2025 ina barato waliba iyadoo waqti badan u kaaga bixin fadadii muuqaalkeena ka heshay iloobin hadii aad naga daawanaysid YouTube-keena in aad subscribe no saartid sidoo kale hadii aad ka daawanaysid TikTok ama Facebook-gana follow-da adana la dhaafin waa mahadsantiin